kani waa mid ka mid ah dariiqyada halbowlaha ah ee ku yaala jamhuuriyadda waa dariiqa Somaliland ku xidha dalka Itoobiya waana jidka u dhaxeeya Berbera iyo Wajaale waxaa maraynta ugu badan ganacsiga Somaliland wuxuuna lafdhabar dhaqaale u yahay dalka waa marinka ay adeegsadaan gaadiidka xamuulka ah ee xambaara badeecadaha dalka Itoobiya ee ka soo dega dekedda Berbera waxa uu ka mid ahaa mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ay Somaliland u maalgelinaysay dowladda Imaaraadka Carabta wuxuuna qayb ka ahaa heshiiskii dabayaaqadii 2016 ay Somaliland la gashay dalka isku tagga Imaaraadka Carabta dariiqan oo ku kacay $112 milyan dhowr jeer oo hirgelintiisa dib u dhac ku yimi kadib madaxweyne Biixi ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay 28 bishii labaad ee sanadkii 2019 maanta halkan waxaynu isugu nimid inaynu markhaati ka noqono dhagaxdhigga dib-u-dhiska iyo ballaarinta jidka Berbera Wajaale oo loo yaqaano Berbera Corridor jidkan dhererkiisu wuxuu noqonayaa 250 kilomitir marka laga yimaado wejiga ganacsi ee wadadan Berbera Corridor dariiqan oo afarta gobol ee caasimadda ka xiga dhanka bari ku xidha caasimadda waxaa ka dhici jiray shilalka baabuur ee ugu badan boqolaal reer Somaliland ayaa halkan naftooda ku waayay wadada oo burbursanayd iyo jidka oo ahaa mid dhuuban oo ay si adag isugu dhaafi jireen baabuurtu awgeed ku dhawaad 7 doox oo ay biyuhu maraan ayaa wadadan ku yaala dooxyada Dacar Budhog iyo Awbarkhadle ayaa ah kuwa ugu khatarta badan waxay xilli roobaadka iyo waqtiyada uu soconayo uu qaadi jiray gaadiidka bulsho badan ayaa nafahooda ku waayay halka kuwa kalena u galaaftay hantidooda bariga hore intaasoo gaadhu qaaday roobku daan intaasoo gaadhu qadan karana hebel aan garan uu qaaday uu diray oo naqaar aad u waayay qaal soo dhanka kale waxaa saacado badan qaadan jirtay inta lagu safrayo dariiqan mashquulka badan khatarta shilalka loogu jiro waxaa dheerayd waqtiga halkan ku baxa gaadiidleyduna waxay kala kulmi jireen caqabado badan baabuurka aan wadan jiray marka hore waxaan ku socon jiray lambarto wadadaasina waxay sida raflowrka oo kale ilaa Wajaale dawlad rafaad baan loo dhamaan jiray oo ku baabaanay dhagaxdhigii Berbera Corridor kadib waxaa halkan ka bilaamatay shaqo baaxad leh oo ay ka qayb qaadanayaan boqolaal shaqaale iyo gaadiid iyo injineero ka kala socda labada dal ee Somaliland iyo Imaaraadka Carabta oo ay weheliso wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo maamuleysay madaxweyne Biixi dhankiisa intii dhismaha wadadu socday waxa uu ahaa mid kormeer iyo korjoogteyn joogto ah ku sameynaya dariiqan muhiimka ah ayna ka goonayd dedejinta iyo dhammaystirka marinka shaqo badan kadib wejigii koowaad ee wadada Berbera Corridor ayaa la daafuray 1 Juun sanadkii 2020 oo ku beegnayd sanad kadib dhagaxdhigeedii markan waxaa fududaatay isku socodkii gaadiidka waxaa badatay nabadgelyadii wadada waxaana koomay waqtigii safarka 3 sano kadib dhagaxdhigii wadada hadda isbedel weyn ayaa muuqda iminkana waa halowga gaariga oo aan arkay laamiga fiican weeye iyo alxamdulillah weeye wadadani markaa boqol anaga xaqiiqii wax weyn soo waayo gaarigu ilaa marka soo socdo sil Dacar ilaa Berbera ilaa 4 saac soo socon iminkana dee waxaan saacad ka soo biriishada oo ahaa khatartii xilli roobaadka xal ayaa loo helay 4 biriish oo waaweyn ayaa la dhisay Dacar Budhog iyo Awbarkhadlana mar dambe laguma halaagmi doono haddana yar sharaxno madaxweyne wadadani waxay ka duwan tahay wadadeena hore design-ka hore wuxuu ahaa 6 tan buu ahaa tan insha Allah waxay noqon doontaa 40 tan iyo wixii ka badan inay xamisho sidoo kale waa la balaariyay wuxuu ahaa balceedii hore 6.5 imikana waxa weeyaan marka lagu daro macaashol riska waa 11.3 balceedu wasaaradda ahaan mar labada bogaadeen hambariyo imika waxa ka gudtay waqtigii tababarada isla qabsashada shaqa aqoonta duruufaha waxa la kana waa wax soo saar xoog leh ilaa labada wado hore dhamaysan sanadka dambe insha Allah dhexdiisa ku kala bilowday suugay aad iyo aad u mahadsan. Assalaamu calaykum warahmatullahi ugu dambeyn Somaliland waxay hadda yeelatay
waddo casri ah oo la mida kuwa caalamka ee nabadgelyada iyo xasiloonida loogu kala goosho. dhowaan ayaana madaxweyne biixi xadhigga ka jari doona dhammaystirka waddadii uu dhagax dhigay sannada ka hor oo bulshada iyo ganacsiguba manaafacaadsan doona. Warumarka ku dhawaaqay